shirkan maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo Carabta u dhaxeeya dalalka Carabta u dhaxeeya waa shir joogto ah, waa kulankii ama shirweynihii sideedaad dhaca tan iyo intuu bilowday 2004 wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxaa bulsho dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha. waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku-dhagiisu muxuu ahaa? halku-dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadida xiriirka iskaashi Shiinaha iyo dalalka Carabta. Shiinuhu sidaad og tahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yidhaahdo Belt and Road ama xizaam tariiq. barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan ama initiative-kaas ama mubaadarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka. marka waxay ahayd tan mid maanta halkaasa culays ku saaraa iyo iskaashiga ama waxwada ahaanshaha dalalka Carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale maaliyadeed ama financial maaragtay cooperation iyo mid bulshadeed, mid dhaqan iyo mid dhaqaale intaba. waaye Soomaaliya maxaa si gaar u khuseeyey markay noqoto iskaashigan dhaqaale? Shiinuhu ma danaynayaa Soomaaliya inuu maalgashado? hadduu danaynayo muxuu doonaya? faahfaahintaas lama gaarin. maanta ka qaybgalka iyagii waxaanu ku tilmaamay waxaan horta soo dhaweynay initiative-kaas ama iskaashigaas dalalka Carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhexayn jiray oo ilaa iyo qarnigii 15 markii dhulmareenadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin kamid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan, iyo inay Soomaaliya ahayd waxaan xusuusinay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horeysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go'doonka diblomaasiyadeed ku jireen, iyo inaanu ugu horeynay dadkii ku kaalmeeyey inay maaragtay kursiga UN-ta ay fadhiistaan. marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana in aada loogu baahan yahay. waxaan u tilmaamay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadhiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha ama waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, dariiqyada, dekedaha, aeroboorada iyo wixii lamid ah. arrintaasaan ku dheeraanay. tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. waxaa jiri doona shir Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September wadankan Shiinaha. marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu ka helay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa lasii qaadaan oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. marka faahfaahinta wixii la xiriira horumarintu taasay sugi doontaa. haddase waxaanu tilmaamay anagoo jaamacadda Carabta kamid ah xiriirkaas iyo road and belt inay tahay Belt and Road inay tahay mid muhiim ah. soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu tageeray iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti sharaf u ahaa
kulanku wuxuu ahaa kulan wasiirada arrimaha dibadda, marka amiirka kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadal ka jeediyey. marka Soomaaliya wadigeeda arrintaas ayuu isku daygaas ama dadaalkaas jinuhu uu maagan yahay ayaanu